الشيخ مصطفى أنا aqoonta ku jirto waxaan aaminsanaa ummadda Soomaaliyeed inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasha dad badan baa saas ku yiri oo anagaba ku niri ma adiga laftigaaga soo gashay laakiin ma jecla wuxuu aaminsan yahay bulshada in qiimaha ay ku jirto in bulshada la dhiso aqoontooda la dhiso fahamkooda la dhiso noloshooda la dhiso runtii Sheekh Mustafaa aqoonta ku jirto waxaan aaminsanaa ummadda Soomaaliyeed inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasha haddii uu af carabi ku hadli lahaa ama ingiliish ay noqon lahaayeen duruustiisa ama carabi noqon lahaayeen runtii aanan ku dardaraynin Sheekh Mustafaa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaamiga fikradaha ee ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalami ah waxaan baarsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin 20 sano u dambeysay waxa wuxuu yiri iska dhaafay dadka qaal Allah Taala iyo qaal Rasuulullaahi baa u sheegay warka tirada badnaa uma sheegayo waxaan u malaysaa booskii oo fikirka iyo falsafada iyo nolosha iyo diinta 20 sano 30 sano ka hor oo Sheekh Mustafaa xoog ku lahaa hadda waxa ku jira Sheekh Abdulrahmaan Sheekh Bashiir oo Mareykanka degan oo noloshiina akhriya diintiina akhriya fahamkii siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo noloshana aad u akhriya runtii asaguna door weyn buu buuxinaya inkastoo wali aan qabo mid Sheekh Mustafaa aan ka qabayo asaguna luqad loo kala ku hadlaya asagoo fikirkiisu oo fikir islaami caalami oo yahay marka culimadaas culimo runtii jiil isdhaxdhaxlaya oo soo bedelaya waa jeeska hadayna gaarteen kalama dib ma xariirtay moodiis ayaan dhaxan mar la hadlay marka wuxuu igu yiri wali jeeska ma gaarin wali waad ku jirtaa Allah ku sahlo agaasma faado aqoon intee leega u leedahay diinta waa maadaama ay qayb badan tahay hadda qaybta wax ku qorta siirada ay tahay xadiista iyo fiqhi iyo hataa qaybta kale naxwaha wax badan jira marka ma dhamaan wax badan ka haysataa ma qayba gooni xoog u saartaa jirta ma yani hada aqoon diineed runtii aan hadda leeyahay aqoontaas aan leeyahay ma jirto nolosheeda intii ugu dambeysay oo marna warbaahin baan ka shaqeynayay marna waxaan ka shaqeynayay siyaasad laakiin tababarkii la diyaarinayo hore inaan sheekh noqday ahayd yani wixii marka hore la igu tababaray oo imaam masaajid waa noqday saan hore u sheegay macallin dugsi quraan waa noqday arday fara badan baan kiciyay oo quraan baray masaajid imaam waa ka noqday muddo dheer waliba haddii jidkaas aan ku sii joogi lahaa u malaynayo inaan xoogaa meel fiican aqoon fiican ii soo kordhi lahayd laakiin markii horena dee xoog badan iyo aqoon badan ma yeelanin oo aan dhihi karo hadda sheekh baad ku noqon kartaa fanni aan isleeyahay xoogaa waxbaa kaaga bilaabana fanniga usul fiqiga baa ka jira oo runtii daraasa fiican aan ka haysto markii horena aan si fiican isleeyahay in macquul ah waad ka baratay intii uun la baran karay haddana faham fiican ka haysta siyaasaddan iga anfacday oo usul fiqigu wuxuu mar walba ka shaqeeyaa wax inuu kala doorto mafsado maslaxada laftigeeda qiibo kala saarayo fahamka diinta oo nolosha lagu dejinayo marka runtii barashadaas laftigeeda nolosheeda iyo maskaxdeeda wax weyn ay ka tartay laakiin buugga siirada aqoonta luqadda carabiga aanu lahaa iyo intii hore aanu soo bowsaday baan isku daray intaas waxa ka soo xabaxday dad badan waxay aamin leeyihiin agaasima nin siyaasiya haddana taliya sirdoon soo noqday oo sirdoon ka soo shaqeeyay inay diin ka dhigistaan marka dadkaas maxaa ku qanci lahayd maxaa inay buuggiisa diin ka akhristaan oo diin u qoriyo la yiraahay dad badan ma aamini karaan marka loo fiiriyo oo habkaas soo marta horta saddex jawaabood waaye su'aashaas aad ay u soo noqotay marka inaan hadda ka bogto waa jeclaan lahaa siyaabo kala duwan ay ugu timaadaa horta number 1 nolosha in la kala saaro waa fikir oo secularism ah oo almaani ah oo la dhaho adiga masaajidka ku joogtaa masaajid ku ekow adiga siyaasadda ku jirtaa siyaasadda ku ekow adiga sirdoona ku jirtaa ku ekow marka horta qofku hadduu muslim yahay waxaa laga rabaa inuu ilaahayna caabudo ummadiisana uu caawiyo oo wuxuu qaban karo uu qabto hadduu wax kale u qaban karin xataa inuu uusan dhibaataynin haddii kalena cilmi iyo maskax wuxuu ku kordhin karo uu kordhiyo marka horta mararka qaar kaftan baan dhiibaa waxaan dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lama kala lahan ninka masaajidka jooga iyo ninka sirdoon ka shaqeynaya iyo ka siyaasadda ka shaqeynaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa wada leeyihiin nabigu uu wada yahay nabigan calayhi salaatu wasalaam intaba waa ahaa dowlad buu ka dhisay madiina dagaalkii ghazwatul ahzaab oo kii ugu halis badnaa muslimiinta ku soo dhacay oo duulaankii ay khatarta u galeen madiinaba in laga qabsado ay ka gaartay